trade life qaadan doona insha Allah waa lacagta dahabka NY session maanta taariikhda tahay 11 August 2025 akoonka ku trade garanay 151.64 baa ku jirta sida arkaysaan horena dabcan trade life aan ugu qaadanaa akoonkani waad ka helaysid profile-ka ICI strategy waa ku trade garanaya soo sida arkaysaan gaabkani buu already trade ko valid ka ah kandalka hoos buu iga xirmay intii aan muuqaalka iyo waxaan aan isku maaragtay diyaarinay laakiin si already waa trade ko valid marka halkan baan insha Allah ka qaadan doonaa asalka 32 bib buu noqonay targetkeygana ilaa iyo 55 bib camal marka trade-ka hadda ku jira sida arkaysaan 0.06 baan ku sel gareeyay okay very high risk kandalka markii uu booday runtiina darudaan xogan buu nagu hayaa laakiin insha Allah aad baa ugu kalsoonahay waxa weeye yani inuu darudaan uu naga soo saari doono biinillah oo kandalkan hadda boodaya kandalkii hore haygiisa insha Allah ma gaari doono aad baa mid ugu kalsoonahay waan arki doonaa insha Allah okay sida arkaysaan alxamdulillah darudaan waa in laga soo saaray inta ay sheegay kandalkan hadda si fiican buu rejection soo sameeyay profit buu inoo bilaabay marka TB1kayga waa soo yar dhaweyn doonaa 22 bib camal aan ka rabaa marka kandalkan afkiisa aan keeni doonaa insha Allah aynu isla aragno ugu dambeyn alxamdulillah suuqa TB1kii uu gaaray sida aragtaan hadda waxaan xiri doonaa insha Allah 0.04 oo la suuqa waxaan ugu jiraa 0.02 dhaqaaq yar oo kale hadduu isiiyo waxa weeye targetkayga waa joogaa insha Allah soo alxamdulillah hadda waa haystaa $171 20% waa ku daray soo let me close oo arkaysaan baa filaya trade-kana full target uu bixin karaa laakiin anu insha Allah waxa uga haraya waxa weeye targetkayga ugu dambeynna trade-kan full target uu bixiyay sida screenshot-kan dambe ka arkaysaan live trading-keena intaas ku eegyahay nabadgelyo